Assalaamu calaykum soo dhawaada magacaygu waa Maxamuud YouTube channelkeygana waa Engineer Maxamuud waa mar kale iyo muuqaal cusub insha Allah muuqaalkan waxaan ku soo bandhigi doonaa habka ugu fudud aad ku delete gareyn karto haddii markaasi taleefankaaga maalintii soo gadatay ilaa iyo iminka waxaa laga yaabaa waxyaabo badan inaad delete gareyn jirtay xitaa recycle bin haddii aad kasii delete gareyso waxaa jira markaasi waxyaabahaas aad delete gareysay virus ee marka ay kugu reebayaan haddii aad channelka ku cusub tahay guuji badhanka subscribe jalaskana furo si aad inoola socoto muuqaalo badan aan halkaan markaasi aan kusoo bandhigi doono sidee ayaa markaasi viruskaas taleefanka ku xiray loogu delete gareeyaa muuqaalkan ayaan kusoo bandhigi doonaa ila joog insha Allah habka ugu fudud aad taleefankaaga waxyaabihii aad delete gareysay viruska markaas ay kugu reebeen habka ugu fudud aad kaga sii delete gareyn karto kaliya waxaad u baahan tahay inaad raacdo tilmaamahan soo socdo marka hore waxaad furaysaa phone ayaynu furaynaa marka hore phone markaynu soo furno kadib waxaynu garaaci doonaa xidig oo laakiin asterisk ay u yaqaaniin waa dadka markaasi technology ama IT ga bartay calaamadan markaasi afar geesta andana waxaa loo yaqaanaa hash ayaa loo yaqaanaa in IT waa marka loo fiiriyo automatically hadda halkan ayaynu garaacaynaa code ayaynu garaacaynaa codekaas markaynu garaacno automatically wuxuu markaa ina geyn doonaa habkii markaa ugu fududeed aynu ku delete gareyn lahayn viruska uu markaa ku reebay taleefanka waxyaabihii markaa aynu hore kaga tirtirnay raac tilmaamahan soo socdo marka hore waxaynu garaacaynaa xidig afar gees 9900 hash ayaynu kusoo xiraynaa hash markaynu kusoo xirno automatically waa kan halkan ayuu markaa inoo soo bandhigayaa taleefankaaga laga yaabo inuu qaab kale usoo bandhigo oo qoraaladan hadda centerka ama dhexda yaalo inuu markaa geeskan u dhigo waa laga yaabaa balse tilmaamaha waa isku mid iyo qaabka markaas wax loo delete gareynayo waxaynu tagaynaa markaa delete dump state ama logic ayaynu tagaynaa logat ayaynu tagaynaa halkaa ayaynu ku dhufanaynaa halkaa markaynu sidaa u guujino halkan waxaa kasoo baxayo delete dump ayuu soo bixi doonto kadibna waxaynu sii guujinaynaa okay ayaynu leenahay si aynu u turno waxyaabihii markaa viruska ama taleefankaaga ku xiray ama taleefankaygaba aniga hore ayaan usoo delete gareeyay ama hore ayaan usoo sameeyay balse haddii aad ku celiso asiga kuma dhahayo horaad u delete gareysay markasta waxaa waa aqbalayaa waa wax markaasi iska caadi ah mar walba aad markaa taleefankaaga aad ku sameyn karto hadda okay ayaan leeyahay oo halkaas automatically hadda wax virus ama hadda taleefanka hadda kadib waxyaabihii aan tirtiro maana hadda waa iska caadi waa nadiif adigana raac tilmaamahan si aad markaa u dareento taleefankaaga virus markaas ku jiray si aad markaa kaga faarujiso tutorialkan halka ayuu ku egyahay muuqaalkan hadduu kusoo gaaray subscribe dheh share like comment muuqaal kale oo xiiso leh insha Allah muuqaalkan halkaas ayuu ku egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.